KNN aniya ku maanaan kaalay kalsooni siisay kalamaan aniya ku maanaan kaalay kalsooni siisay kalamaan aniya ku maanaan kaalay kalsooni siisay kalamaan si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan aryaada bariga war ma haysin intahaanta qabada aqaarka sare bannaan yahay taa kana qabyada tahay qalabka waan sidaynaaye waan qaraabanaynaye kay qalooc la taayo wayno qoray afkiis ninkaan dhoof ku iman bay dagaaladu dhibayaan eesaantii masiya good madax shabeelleefta malageedi baa galaye war aan idin akhriyo qodobada aan ku heshiinay war saxaafadeed ka soo baxay beesha kalamaan oo maanta iskumaan ka noqotay xaaladda taagan markaan aragnay damaca iyo dulmiga kukuuyaha kudhiingaha kamuungaha iyo kalajiinka hamiya kenya yote markaan aragnay dareenka kacsan ee bulshadeenna aan ku matelno buuqa iyo isbarbaryaaca waa tuwaan gubaana markaan aragnay ismoogaysiinta iyo aamusnaanta madaxda kore liidaryaan gubaana bahda kalamaan waxay soo saartay go'aan ka kooban 3 qodob iina taatu koow in la joojiyo sunta cagaaran oo la ogaaday xataa inaan xayawaanku daaqin miraa ya kenya 2 in ciidanka caloolaha buuran ee kenya oo markii hore sharci darro ku soo garay dalkeenna cagaha ka qaadaan ciideenna oo la ceyriyo It was true they came our country agrish askariya Kenya yote qodobka 3 inaan la aqoonsan xuduud beenaadka Ingiriisku sameeyay oo lagu kala qaybiyay bulshadeenna gaarisa aan wajeer waa tuwaan gubaana bariga heebaankaad madaxu uga wada jartay ugu dambayn go'aankan wuxuu dhaqan gelayaa markii laga baahiyo KNN war annaga biyoon kuma aanan heshiinayo wax ninkan u daldalaye waxay kalamaan uga digaysaa bulshada Soomaaliyeed kala qaybsanaanta iyo isbarbaryaaca taasoo keentay in beer la fayeeshay anigu waxaan dhiilay bacdaada beera la fayeeshadaada ma aqaanihu badayda baad ku dhiibima baraarna waa buukay aqaan badayda baad ku dhiibima baraarna waa buukay aqaan haye war waxba hadaalinina Kenyaati shirib ma yaqaan war ana u fasiraya Kenyaatiga shiribka siyaan gubaana habaana kubatiya weewe in low bariga heebaangadaad iskala waafaqday war hadii hore loo yiri waa shay macaan una malayga hadda waxay xaaladdu maraysaa waa shay macaan qota shidaalka war maahan waa shay qaali ah dhaca shidaalka weey war Abu Salaad Abdullah wuxuu yiri biyaha anaga iska leh badan inuu ii ma aha war waxa la yiri warka waa badisaane bulshadii xumaan lagu falo ficil sameyn weyda fashil baa ku dhaca aadna wuu kala fogaataa hey basaan bisyoon badeynay baasay ka tahaye haw basaan bisyoon badeynay baasay ka tahaye haw basaan bisyoon badeynay baasay ka tahaye haw basaan bisyoon badeynay orbadu waa basta marka leedahay ma bada gubata waa biye nimayo waxaan ii sheegaa horta taxsiyaatiin tabarna maliidina tama marata taxso hoosiin aqaltiir laanti kaligi ma taagne haddaynan istaakulin tabar yeelamayne ka tashada cadawo isku tiirsanaada Soomaaliyay mariya laba waad murgucateene masallahan gumeysku sita 100 masiibaahe waa madal mahar weyn haduu meel yar ka helo halkii waa laga mudayna waynaad ka maagtahay warsaas maana waxay ahayd taraanturootay kuftay dhacday ayaa taqaan war hadda ka hor wiil baa aabiis wuxuu u soo gaday jiray macaws Indonesia markaas wuxuu maqlay waxa dhintay madaxweynaha Indonesia wuxuu yiri ha dhinto darxumadan ba ku nacay marka Kenya ha baxdo qaadka iyo qashinkan ba ku nacay warnamay waxaan la yaabana dawladda Kenya inta xiriirkii Soomaaliya kala dhaxeeyay jirtay ayay haddana soo rartay maanta qaadkii miya waraadhaanu waxaan la yaabanahay shacabku haday dawladaha u jawaabaan madaxdu maxay qabanaysaa xayta dadkan dawladooda ka horeeya arinaga shibdhe dawladu waa shacabke war qaranka Soomaaliland hadaa israaf lahaydeen qaad kale annaga idin keeni lahayn Kenya annaga idin dhexaadin lahayn aarakalisa dawaataas adna waxaan ku nacay digsi markii loo heestay qaadaan waxaan laastaa war Kenya madaxweyne
xaafaa jiroo la soo heshiinaya arrintaana dhammaynaya ha iswaalinina aryaadhaha hadda ka hor dawladdii kacaanka soomaaliya etoobiya markay dirirayeen cabdiqaasin salaad xasan oo wasiira aa la weyddiiyo waxaa la yidhi kenya iyo etoobiya waxay ku heshiiyeen dagaalka inay wada galaan miis ka dhici kartiin mugaasaa cabdiqaasin ku jawaabay etoobiya ciidankaa ku maqan kenyana haweenkaan u diraynaa mugaasaa kenya cabaado waxay tidhi heshiiska waa ka baxay aan etoobiya la galay waxay sheegayaanee hadda war adeero berigaa xiliniyaa idin shidayey war hadda gabdhihii waa iscaddeeyeenoo dagaal ma geli karaana maxaa la samaynayaa war xilligaa cabdilla sheegayo allah u naxariistay madaxweyne maxamed siyaad barraa wuxuu yidhi kenya hadday jooji weydo gardarrada sarta saddex agalka oo bartamaha nairobi ku taallaa noo ballana hoosteedana gabar soomaaliyeed baa shaah ku karin doontuu yidhi waxaa la yidhi bahal soo bixi waayo boodkiis ku jire amaas bukaa warwarkaa ku daalinine dawladda soomaaliya mar dhow war weyn baa ka soo baxaya saakana garoonka muqdisho waxaa ka soo degey safiir tarsan oo la soo cayriyey iyo wasiirka arrimaha dibadda oo kenya transit ku ahaa oo tarsan gacanta soo qabto muqdisho keenay war wafdigu waa badnaa waxaa ku jirta marwada madaxweynaha horta cabdi xaashi sawd kuuriya ma ka yimid mase waaga waa ku maqan yahay horta tarsan ma iska soo cararaya in rag ka dambeeya miyuuna ogeyn war ma ee guriga safaaradda annagaa leh uhuru kenyatta maa noo soo raro nimayo horaa waxaa loo yidhi talla waa wareertaa tiirna waa jawaab marka kenya taladaa ka wareerti war nimayo gabar baa maanta facebook waxay ku soo qortay dalkaygu waa ninkayga waana jeclahay gabar kalaa commenti ka dhiibatay oo waxay tidhi dalka waan wada leennahay waana wada jecelnahay gabadhiisa markay ka laabatay oo waxay tidhi ninkayga lama wada lahaa waryaha guddoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir wuxuu yidhi ciddii dambe oo dacwadeeda baraha bulshada ku faafisa ciqaab bay la kulmi doontaa marka hadalka ayaa lagugu xihan aad facebooka la wareegayso waryaanta kale len dacwoode maxkamadda oo cadaaladda ab facebooka nagatay war dadka dacwoonaya ilaa iyo markii suuqa bakaaro gubtay warbaahinta iyo facebook inay ka dacwoodaan waa ku qasban yihiin sababtoo ah cid kaloo wax u qabata waa waayeen war sargaalkii 60 nin oo shabaabka geda ku dilay muqdisho inta laga wacaya la xiray taliyay dhahayna shabaab meesha lagu arka hal dilo amarkaas waa ka laabtay war ma shabaabkii aqareena difaaca helay aryaadhaha waxaa runa miyaa shaki male inay laba shabaab wada shaqeeyaan war maye ma hubsadiyo handafe oo walaalo war adeerow qaadiya qarsho weeye waxaa mataanaha ah war ma ee musug i maasug u hang mintaante waryaada waxaa la yidhi xafiiskii waraaqaha hadduu cunug la weydaarto waddadaa la soo dhoobayaa sheeko waafiyehe waaweynkii bay saaran tahay seeftii waaliduye weerarrada isdaba jooga iyo waardiyala'aanta shaqadaa wasiirkii lahaa ciduma weydiisa warya warkiin hobkaasleybaey facebook maynin kureebtanka da'woono shaqada wasiirkii lahaa cidima weydiisan warka kale intiis ka dhaaftiin kenya waxaan leehay ciidankaaga la baxay walaa dulmi ku tumado dembiilaheeda dembiila tahay dib u baxe dalkaagii aaday 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 dib u baxe dalkaagii aaday